xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinta ee doorashooyinka 2020 muwaadiniinta Soomaaliyeed oo isdiiwaan galiyay waxay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu codkiisa dhiibto iyadoo aan loo eegayn muuqaalkiisa dhaqaalihiisa lixaadkiisa iyo halka uu ka soo jeedo midna sidoo kale dastuurku wuxuu muwaadinka siinayaa xaq ah in uu xisbi samaysto ama uu ku biiro xisbi jira oo ku qancay mabaadi'diisa muwaadiniinta way u sameeyeen yihiin ka qaybgalka codeynta codbixiye kasta wuxuu leeyahay hal cod oo kaliya maalinta doorashada qofna lama siin karo fursad codeyn oo dheeraad ah codbixiyaha isdiiwaan galiyay kaliya ayaa heli kara fursadda codbixinta maalinta doorashada codadka lama iibsan karo lamana iibin karo codeyntu waa ikhtiyaari hase ahaatee muwaadin waxay mas'uuliyadi ka saaran tahay in aad dalkaaga u doorto hogaamiyaha saxda codbixiyaasha waxa ku waajib ah in ay si fiican u fahmaan nidaamka codeynta oo dhameystiran sida calaamadinta warqadaha codeynta si cabsida iyo qatarta looga ilaaliyo muwaadinka loona xakameeyo laaluushka wuxuu muwaadinku u codeynayaa si qarsoodi ah wuxuuna ku codeynayaa meel ka qarsoon dadka intiisa kale oo loo diyaariyay marka aad noqoto muwaadin firfircoon oo dareensan lahaanshaha waddankiisa ayaa talo ku yeelan kartaa doorashada wakiilada siyaasadda kugu matala ee gaara go'aamada saameynta ku yeesha noloshaada iyo mustaqbalka dalkaaga muwaadin waa inaad ogaato oo aad si fiican u dhuuxdo aragtiyaha iyo siyaasadda musharaxiinta iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada dalka si aad codkaaga u siiso midka ugu wanaagsan ee aad ku aamini karto hoggaanka dalkaaga sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya doorashooyinka waxaa loo qaban doonaa si joogto ah qof kasta oo doonaya in uu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka waa in uu dadka hor yimaado isla markaana kasbado kalsoonida shacabka si uu u helo codkooda dastuurku wuxuu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku waajibinayaa in ay dalka ka hirgeliyaan doorashooyin guud oo xor iyo xalaal ah 4 sanaba mar muwaadin codkaagu waa muhiim maxaa yeelay wuxuu horseedi karaa dawladnimo ku dhisan dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinta ee doorashooyinka 2020 muwaadiniinta Soomaaliyeed oo isdiiwaan galiyay waliba haganleeyna inoo odeeyaan qof walba mayba haganleeya inoo odiyay dhiibada iyadoo lan fiiriyana muuqaaljay dhaqaalashi lihaadshay iyo deegaanku sakajeeda saas oo kale muwaadinka mayba dastuurka siiyay xaq inuu isba suubsada masaka daram hisba jira oo iska qanay mabaadi'diisa muwaadiniinta insamayinka qaybgalka odeynta idbi kasta mayba leehal maalinta doorashada lagna may sii kor fursad odeyn oo dheeraad ah oo bixiya isdiiwaan galiyay bas ya helo koro fursad odeynta maalinta doorashada idka malgada koro maanamay gada koro odeynta ikhtiyaaro haato muwaadin mayba mas'uulka oo saaranta inuu doorto dalka hogaamiyaha saxda ah idbiyaash mayba waajibka inuu safayl ongoradaan nidaamka odeeyo ku dhimaastiran sida calaamadayo ku wargaday odeynta soo obsada iyo qatarta lanka ilaali muwaadinka lan hakamay laalushka muwaadinka mayba odeeyay sagarsan mayba ku odeeyay meelka garsan dadka intiyo kala oo lan diyaariyay markii aad nagata muwaadin firfircoon oo dareensan lahaanshaha waddanki iyo talo ku weelada korta wakiilada keenmada siyaasadda ee diiraw go'aamada saameynta leh nolosha iyo mustaqbalka dalka inaad ogaato safaylan andhuuhda aragtida iyo siyaasadda musharaxiinta iyo xisbiyada ka tartama doorashada dalka saadidka ansiida kan ka fayl oo aad ka aamini karto hoggaanka dalka sida ka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya doorashooyinka waliba langu wada doonaysa joogto ah qof walba fadaw inuu isku daramo xubnaha baarlamaanka waa inuu dadka horkooyo isla markaasna kasbada kalsoonida shacabka dastuurka waliba guddiga madaxbannaan doorashooyinka qaranka ka waajibiyay inuu iyo dadka ka hirgeliyaan doorashooyin guud oo xor iyo xalaal ah 4 sanaba hal mar muwaadin codka muhiim waay sababtoo ah mayba horseeda kore dawladnimo ka dhisan dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan Mel da son kelidada